meesha ka dhacay marka waxay 30 daqiiqo ciidankeeni oo la laayay oo la dilay ayagoo fadhiya ka bacdi 30 daqiiqo xabad loo wada waxay ahayd in annagana la qaarijiyo waxa loo ridaayay madaafiicda iyo dashiikaha iyo jabshaha iyo bambadana waxay ahayd in la muujiyo meesha inay dagaal ka socdo ay tahay sidaas daraadeed annaga waxaan halkan ka cadeynaynaa in la ku soo qaado weerar la doonayay in la ku qaarijiyo mas'uuliyadda weerarkaasna waxa iska leh maxamed cabdullaahi farmaajo qof kale u haysana ma laha waa naqaanaa wiilasha weerarka qayb galay hadduu yahay midka gobolka nabadsuud u haysta ama midka ku simo intababa ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo agaasimaha madaxtooyada intaba inay ahaayeen informed ay daqiiqad ula socdeen oo ay qadka ku wada jireen raadiyaasha la iska maqlay ciidanka nabadsuudan haynaa aynan ogaayeen amarkaasna ay soo bixiyeen taasna waxaa caddayn u ah in aysan haba yaraatee wax ka muujinin inay ka xanuunsan yihiin in ciidankii nabadsuuda dad lagu laayo waxaa kaloo taa ka sii daran markay cadaaladii xukuntay xaqdarrada inay weli sii leeyihiin ay cadaadis ku hayaan cadaaladii oo ay leeyihiin arrintii ha la fuliyo ha laga daba tago oo ay garsoorkii madaxa bannaanaa weli cadaadis ay ku hayaan waxaa kaloo caddayn u ah in ay weli canaananayaan saraakiishii ku fashilantay inaan isqaarajinno oo ilaa hadda la haysto ninkaas sargaalka gudaha sababta u soo galay aan loogu talagelin inuu soo galo xogtooda dhan waa haynaa hal mid aan rabnaa inaan inii sheegno oo dadka soomaaliyeed inu caddayno wax allaale iyo wixiina soo gaara annaga haatan iyo kadib mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh maxamed cabdullaahi farmaajo haddii ay waxna gaaraan dadka soomaaliya waxaan u caddaynaynaa waxaa mas-uul ka ah maxamed cabdullaahi farmaajo dhiiggeenna wixiina gaaro asagaa loo haystaa taas nimankanu waxay soo qaadeen dagaal dawlad dumis ah dagaalka waxay ku bilaabeen dawlad goboleedyada waxay ku xijiyeen xildhibaanada waxay xabad ula tageen siyaasiyiintii waana waxaan kaga digi jirno ka waani jirno intaan la hadlaynin oon lahayn talada soomaaliyeedba intaasay ka dhexaysaa waxay ka dhexaysaa xildhibaanada siyaasiyiinta maamul goboleedyada in talada dhexda aad dhigtaan oo la heshiisaana la rabaa waxaa soo baxday niman intii inay ka takhallusaan raba weerar inay ku qaadaan raba ayagoo isticmaalaya magaca dawladda waxaan halkan ka caddaynayaa soomaaliya waxaa jooga 22 kun oo ciidan ajnabi ah waxay u joogaanna waxaa waaye inay soomaali kale ilaaliyaan ay ahayd markaan ka soo kabsannay oon isku soo dhowaanay oo in yaroo shabaab oo qoray la ordaysa maahane intii kale ay ogolaatay inay dastuur iyo dimuqraadiyad iyo sharci u kala baxdo ninka maanta doonaya dagaal sokeeye iyo colaad iyo xabad inuu u celiyo waa ninaan ogeyn waxa dalkaa laga soo maray waa ninaan ogeyn ajniyo nala jooga sababtay noola joogaan waa ninaan ogeyn waxa adduunka halkaan ka gelaya sababtay u gelayaan waa ninaan waxba ka warqabin waa nin mooga ah annagana dalkan kuma aamini karno cid mooga ah wax kasta oo sharciga ogol yahay waxaan anigu ku soo baxayna waa sharci afduubkii la ii geystay waxaan afduub u leeyahay wax sharciyoo loogu wada ma jirin afduub iyo iskuday dilaan ka baxsada ka bacdin afduubaa la ii geystay ma jirin maxkamad soo amartay in lay xiro ma jirin xeeraalin i wacdo warqad ii keentay ma jirin cid inay dacwo ii qabtay ii sheegtay 6 saac bay dhashiike iyo maafiic korkeyga ka dhacaya ka war helay anigu sharcigaan u taaganahay